Bannaanka marka aad ka taagan tahay dabcan waxa kaliya ee kuu muuqanaya waa hal masjid, balse gudihiisa markaad u sii dhaadhacdo ayay wax walba isbedeli doonaan. Ogow, waxa aan ka hadlaya ma aha laba masjid oo iska dhanac dhisan ama masaafo yar ay u dhaxayso dhismahooda, ee waa hal masjid oo dhexdiisa ay wax kasta u kala qaybsan yihiin. taariikhdiisii waa dheer tahay Abaasul Qarni. Abaas ibnu Caamir yaa la yidhaha isaga. taariikhdiisii waa dheer tahay, macnaha xataa shafeecada nabiga qayb uu ka qaataa. marka labadan masjid waa kala horeeyeen. Abaasul Qarni yaa horeeyey, kadib Sheekh Muumin yaa la dhisay. mawlucu ahay marka masjid ahaan yaa loo meeraaray. Haddii aad tahay qofka cusub xaafadda uu masaajidkan ku yaala ee Aweeska Xamarweyne, waxaad isweydiin doontaa sababta ay halkan masjid wax kasta ugu kala qaybsan yihiin kaliya marka laga reebo qaybta weysada iyo musqulaha. mu'adiniintu waa labo, imaamyadu waa labo, mixraabku waa labo, xitaa jameecadiisu waxay u kala qaybsan tahay labo. maxay ahayd sababta sidan loo yeelay? maxaa la iskugu dari waayey labada masjid? iyo su'aalo kale oo dhowr ah ayaan hordhigay Sheekh Axmed oo ah mid ka mid ah labada imaam. sidoo kale su'aashan waxaan weydiiyey Iikar Dheere Iikar oo ah 83 jir, 35 sano oo ka mid ah cimrigiisa ku dukanaya masaajidkan, balse waxa kaliya ee nuxurka jawaabahoodu ay ku soo ururayaan waxay ahayd in sidan ay yeeleen awoowayaashood inay wax ka bedelaan ay u arkaan mid ay ciqaab ka dhalanayso. dad oo socota waa yimaadeen, waxay leeyihiin labadan masaajid in la isugu daro ayaa fiican. marka waxaan dhahnaa adiga goorma xamar soo gashay awalba, ileen anaga hataa ma dhalneen. waqti aan saan ku aragnay ko labadan jamaaco laba cadow isku ahna ma aha. macnaha hadduu xun yahay iyo hadduu san yahay culumaa joogi jirtay, maqsuuntahay. hadduu ilaahay raali ka ahayn culummada waa dheereedo waxaan ma jiro raaliga ilaahay kama aha, ilaahay ka baqa, ilaahay ka cabsooda. marka annaga waxaa leenahaynaa jidkii waalidiintii ku socdeen saasaan haynaa. waxaa jirtay sheeko kale oo ay la wadaageen dadka degan xaafadda uu masaajidkan ka dhisan yahay ee Aweeska Xamarweyne, taas oo ah in masaajidkan uu hal ahaa markii hore, balse laba qabiil oo qarnidaas noolaa isku dhacooda uu saameyn ku yeeshay goobihii cibaadada. haddaba ma jirtaa arrintan? waxaan mar kale hordhigay Sheekh Axmed. marka la leeyahay laba xaafad waaye, xaafadda Bandhawo iyo xaafadda Aweeska. waa laba dhalatay oo markaasi walaala isjecel. reer Bandhawo xaggay ku dugtaan, reer Aweeska inta waa ku dugtaan. wax cadaawtinimo iyo col dhaxyaal ma jiraan, ilaa haddana ma jiraan. marka dadka waxaan dhahnaa anaga masaanaan ku aragnay, qasad ahaan ma ahayn masaajid meesha laga dhiso, ma ahayn mawduucaas ahaay oo Sheekh Muumin oo ku wardinayay. marka dadka markaas sidaas jamaaca ay ku oogeen meesha. maxay diintu ka qabtaa in hal masjid loo yeelo laba mixraab, laba mu'adin, laba imaam iyo laba jameeco? waa su'aal u taal culummada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo diinta wax ka taqaan daawanaysana warbixintan. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo darbigeedu iyo masaajidku ay isku muuqdaan, iyadana waxaa hortaala su'aalaha ah masaajidda gobollada ku yaala iyo xitaa Muqdisho meelaha iyada ka fogfog marka la iska daayo, wasaaraddu ma u xisaabsan yihiin goobaha lagu cibaadaysta ee ka agdhow? ma jaangoysaa xilliyada aadaankooda? ma jasuuraysaa ama faaf reebtaa muxaadarooyinka iyo fariimaha diiniga ah ee lala wadaaga dadka ku xiran?